بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا qodobada wararka janalkeena Daynila TV ugu door koron waxaana ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo ka hadashay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur dawladda Soomaaliya oo warbixin u gudbisay dalalka Afrika dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Hiiraan madaxweyne Xaaf oo baaq ka soo saaray dagaal ka dhacay gobolka Mudug ku dhawaad 10 ruux oo weerar lagu dilay halka kuwa kalena la dhaawacay gaari bas ah isla markaana looga shaqo qabo in ay weerareen xarakada al-shabaab Sheekh Cabdil Hayy oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo si ka duwan culimada kale uga hadlay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Daahir Aweys oo shaaca ka qaaday xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sida wax walba loogu ogolaaday ugu dambeyntiina al-shabaab oo dagaalyahano cusub qoranaysa iyadoo ay wajahayaan cadaadisyo ballaaran daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Daynila TV ugu door corona intaan ugu galin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka dalbanaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambareelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya wararkeena u soo dhacaan haatan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur dawladda Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruurtay eedo u jeediyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku andacooday inay iyaga soo awaawuleen hadal u jeediyay Sheekh Xasan Daahir Aweys wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in arinta lagu haysto Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay tahay mid diini ah oo culimada Soomaaliyeed ay ku haystaan isaga oo la hadlayay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayuu sheegay in arintan aysan ahayn mid dawladeed iyo dad ay ishayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur hayeeshee looga baahan yahay inuu iska baryeelo arinta ay culimada ku haystaan waxaan ugu baaqayaa siyaasiga inuu qabto kulan culimo ah oo uu ku dhageysiinayo warkiisa iyo waxa ay ka qabto diinta haddii ay sheegaan in uusan dambi lahayn wuu iska baryeeli karaa haddii ay dhahaana waad qaldantayna ha tago masjidka ugu dhow ee ha toobad keeno ayuu wasiir Maareeye wasiirka ayaa waxa wax laga weydiiyay hadalkii Sheekh Xasan Daahir Aweys oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dawladda ku eedeeyay in ay u adeegsanayso waxaana uu sheegay in Xasan Daahir uu yahay muwaadin u arkay in diintiisa wax laga sheegay oo difaacaya xurna ah dawladda Soomaaliya ayaa warbixin u gudbisay dalalka qaaradda Afrika wasiiru dawlaha boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mudane Cabdullaahi Bilan Nuur oo ka qayb galay shirka heer wasiir ee hal abuurka tiknoolajiyadda ee Afrika ayaa sheegay ama ka warbixiyay dadaalada wasaaraddu ee la xiriira sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo helitaanka internetka ee Soomaaliya wasiir dawlaha oo dood wadaag kala qayb galay qaar ka mid ah wasiirada isgaarsiinta Afrika ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay wasaaraddu ka qabatay sidii loo baahin lahaa helitaanka internetka iyo horumarinta xirfadaha tiknoolajiyadda isagoona tusaale u soo qaatay qodobadan dalka waxaa soo gala 3 xarig oo internet ah waxaana socda qorshaha 2 xarig oo kale lagu keenayo kuwaas oo marka ay wada hirgalaan kordhin doona helitaanka qiimaha iyo tayada adeega internetka ee Soomaaliya wasaaradda oo kaashanaysa bangiga adduunka waxay u fududeysay in qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda federaalka iyo kuwa heer dawlad goboleed iyo qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya ay helaan adeeg internet wasaaraddu waxay wada qorshe lagu dhisayo xarunta hal abuurka tiknoolajiyadda ee Soomaaliya taas oo noqon doonta goob xiriirka xarumaha hal abuurka Soomaaliya oo la doonayo in la gaarsiiyo heer degmo iyo heer jaamacad kasta ay u furto adeegyada si ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha ay u abuuran karaan shaqooyin waxa dhawaan golaha wasiiradu uu ansixiyay siyaasadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda taas oo ahmiyad gaar ah lagu siiyay sidii tiknoolajiyadda loogu isticmaali lahaa waxbarashada iyo adeegyada kale ee loo adeegsado tiknoolajiyadda wasaaraddu waxay dib u howlgelisay majidkii isgaarsiinta qaranka oo loogu talagalay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu baahinayo aqoonta iyo xirfadda tiknoolajiyadeed ee Soomaaliya
wasiir dowlaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa intii ay joogeen shirka waxa ay sidoo kale la kulmeen wasiiro, hay-ado iyo shirkado ka shaqeeya horumarinta aqoonta tiknoolajiyadda iyo hal-abuurka si la isku weydaarsado waayo-aragnimada iyo tiknoolajiyadda loo adeegsado kobcinta aqoonta tiknoolajiyadda. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada waxbarashada iyo isgaarsiinta ee qaaradda Afrika waxaa looga hadlayay kaalinta ay tiknoolajiyaddu ka qaadan karto horumarinta waxbarashada, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyay sida shirkadaha gaarka ah gacan uga siin karaan dowladaha Afrika dadaalkooda ku aadan aqoonta tiknoolajiyadda. Dagaal khasaare geystay ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa wararka dheeraadka ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Ceelcadde ee gobolka Hiiraan ku dhex maray ciidamo dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid sida la sheegay kadib markii Al-Shabaab weerar ku qaadeen deegaanka Ceelcadde ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay gacanta ku hayaan dad is-aruursaday kana soo horjeeda maamulka Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan hal saac socday. Dadka deegaanka Ceelcadde ayaa goor sii horeysay waxa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen in ka badan 2 ruux, isla markaana intii uu dagaalka socday ay la wareegeen deegaanka xarakada Al-Shabaab. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in gebi ahaanba isgaarsiinta magaalada la jaray, aanan si rasmi ah loo ogaan karin xaaladda ka jirta deegaankaasi, sidoo kalena ciidamada deegaanka ay u baxeen deegaano dhaca duleedka Ceelcadde. Si kastaba, dagaalka ka dhacay deegaanka Ceelcadde ee gobolka Hiiraan weli kama hadlin maamulka gobolka Hiiraan iyo la wareegitaankaasi deegaankaasi ee Al-Shabaab. Madaxweyne Xaaf ayaa baaq ka soo saaray dagaal ka dhacay gobolka Mudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa si degdeg ah ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaan hoos yimaada degmada Afbarwaaqo in ay dagaalka joojiyaan. Madaxweyne Xaaf oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la kaashan doonaan joojinta dagaalkaasi, isla markaana ciidamo ka tirsan Galmudug loo diri doono goobta uu dagaalka ka dhacay. Waxa uu tilmaamay Madaxweyne Xaaf in ay nasiib darro tahay in dagaallo ka dhacaan deegaanada Galmudug, waxaana uu sheegay inay dadaal badan ku bixinayaan nabadgelyada gobolka Mudug. Waxaa xaalad deganaansho ah laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo uu dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac geystay uu ku dhex maray 2 maleeshiya beeleed. Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Inadiidey oo ku yaala degmada Afbarwaaqo ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 15 ruux, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ku dhowaad 10 ruux ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday gaari bas ah. Dhowr qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhintaan kadib markii koox looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bas marayay inta u dhaxaysa Mandheera iyo Kutuluud oo ka tirsan gobolka Wajeer. Taliyaha booliiska gobolka Wajeer Stephen Nikitich ayaa xaqiijiyay weerarka, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xarakada Al-Shabaab. Waxaa xaqiijin karaa in koox hubeysan ay weerarkan baska ah ku safrayay Mandheera ay weerareen. Weli wax macluumaad ah kama hayno tirada khasaaraha, ayuu yiri taliyaha. Qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in kooxda hubeysan ay dileen ku dhowaad 10 ruux. Sheekh Cabdilxayi oo ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa si ka duwan culimada kale uga hadlay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sheekh Cabdilxayi oo ka hadlay arinta muran ka dhalisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u cabiray si ka duwan sida inta badan culimada arintan kaga hadashay. Inta badan culimadii arintan ka hadashay ayaa aad u dhaliishay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaarkood ku sheegay in uu toobad keeno ama uu ka soo laabto hadalka uu yiri, isla markaana uu yahay mid gaalnimo.
hase yeeshee Sheekh Cabdilxayi ayaa ka digay in arrintan laga sii daro, wuxuuna soo jeediyey in loo wajaho si deganaansho ah oo isku nasteexayn ku dhisan. Diinteenu waa diin nasteexo ah. Haddii dadku qaldamaan, waxaa loo baahan yahay in si walaaltinimo oo tartiib ah wax la isugu sheego. Waa marka la rabo in wax la bedelo, balse haddii aan la rabin waa arrin gaar ah, ayuu yidhi Sheekh Cabdilxayi. Sheekh Cabdilxayi ayaa sheegay in marka hore loo baahan yahay in qaladka dhacay la iska wareysto oo cidda ay khusayso la weydiiyo, kadibna si tartiib ah arrintii loo xaliyo. Annaga Soomaali ayaan nahay, in si tartiib ah aan arrinta isku weydiino iyo inaan si kulul wax isku weydiino. Waxaa noo fudud inaan si kulul wax isku weydiino, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in dhibka Soomaaliya haysta ee mar walba iska horkeenaya, isla markaana muddada fog aan dhibaatada uga jirno ay tahay inaan mar walba si dagaal ah aan xalka ku raadino, ayuu yidhi. Sheekh Cabdilxayi ayaa sheegay in arrintan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay hadda iyo wixii ka dambeeya tahay arrin aan mudnayn in laga sii hadlo, sababtoo ah buu yidhi qofkii gefka galay wuu hadlay, wuu cudur daartay, kana laabtay gefkii uu galay. Maxaa kale oo loo baahan yahay in laga sii wado ama laga sii wada hadlo, ayuu yidhi. Xasan Daahir Aweys ayaa isna shaaca ka qaaday xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida wax walba loogu oggolaaday. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo muuqaal cusub soo duubay ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo dowladda Soomaaliya oo uu u xiran yahay. Sheekh Xasan Daahir Aweys waxa uu beeniyey in dowladda Soomaaliya adeegsato kadib markii mucaaradka iyo dadka kale ay sheegeen in loo isticmaalayo in lagu weeraro dadka siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan dowladda Soomaaliya. Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay siisay qalabka iyo internetka uu wax ku soo duubay, balse loo sheegay inuusan ka hadlin siyaasadda. Waxay igu yiraahdeen siyaasadda ha ka hadlin. Waxaan ku idhi siyaasadda ha ka hadlin sax maaha. Lugihii waad iga xirteen, adimihiina waad iga xirteen, afkiina iga xira oo qalabka iga qaata, ayuu yidhi Xasan Daahir Aweys. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabo badan oo aysan haysan dadka kale ee u xiran dowladda isaga loo oggolaaday, sida inuu la kulmo qoyskiisa, taasi oo uga mahadceliyey dowladda. Xitaa carruur ayaa iigu dhalatay aniga oo maxbuus ah, ayuu yidhi. Waxa uu muujiyey in cadaadis xooggan oo beesha uu ka soo jeedo uga yimid dowladda ay qasabtay in waxyaabo badan isaga loogu oggolaaday. Mararka qaar qabiil si buu ku wanaagsan yahay, ayuu yidhi Xasan Daahir Aweys. Nimankan aan u xiranahay waxba igalama dhexeeyo, xitaa ma xiriirno. Mararka qaar askarta ilaalada iga haysa ayaan iskala macaamilaa, ayuu yidhi. Waxa uu shaaca ka qaaday in mar ay wada hadallo u bilowdeen isaga iyo madaxda dowladda, balse ay burbureen kadib markii uu mowqifkiisa ku adkaystay. Wixii markaasi ka dambeeyeyna aysan dib isku arag. Xasan Daahir Aweys ayaa dhanka kale ku adkaystay inuusan weligiisa laaluush iyo lacag xaaraan ah qofka ka qaadan, isla markaana aysan jirin wax uu haysto oo dhaqaale ahaan uu u liito. Ugu dambeyntiina, Al-Shabaab ayaa qoranaysa dagaalyahano cusub iyadoona ay soo wajahayaan cadaadisyo. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa Daynila TV u sheegay in Al-Shabaab ay wado dagaalyahano qoris cusub xilli dhanka kalena ay wajahayaan cadaadis xooggan. Saraakiisha ayaa sheegay in xarakada Al-Shabaab deegaanada ay maamulaan dadka ku nool ay ku amreen in ay keenaan dhalinyaro u dagaalama hub iyo nooca fudud ee qoryaha dagaalka. Falkii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay deegaanka Ceelgub oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe oo ay dhowaan galeen xarakada Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa laga qaaday hubka, qoryaha dagaalka iyo dhalinyaro u dagaalanta, sidoo kalena xoolo nool ayaa laga qaaday dadka qaar, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Saraakiisha ayaa sheegay in dhaqaalaha ay haystaan ay u saamaxayso xarakada Al-Shabaab inay dagaalyahano cusub qortaan. Xarakada Al-Shabaab ayaa hadda canshuur ka qaada dhammaan ganacsiyada Muqdisho iyo sidoo kale dadka guryaha dhisanaya ama iibsanaya, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen guddiga qubarada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkeena Daynile TV waa naga intaan warkan warkiga ku kulmi doono nabadgelyo.